casharkan waxaan ku baran doonaa basic syntax-ka html iyo sidoo kale waxaan ku baran doonaa sida file html laga soo rangareeyo qoraalka aa ku qornana loogu soo bandhigo browser. Inta aanan u guda galin basic syntax-ka aa baranayno waxaa u kala qaadaynaa codeka html la qoraayo laba nidaam ayaan u kala qaadi doonaa. html waxay ka kooban tahay wax loo yaqaano tag iyo waxay ka kooban tahay element ayay ka kooban tahay. Okay, tag waxaa loo isticmaalaa calaamadan ayaa loo yaqaanaa tag. Sorry, dhodaas meesha ka saarno. Elementigana waxaa baran doonaa list of elementiga. Elementiga wuxuu geli doonaa inside tag ayuu geli doonaa. Tusaale waxaa dhahaynaa html. html waa element oo ka mid ah elementiyada html-ka, waana elementiga ugu weyn. Marka maxaa u kala qaadaynaa waa tag iyo element ayaa u kala qaadaynaa. Okay, waxaa rabnaa marka basic syntax-ka ama structure-ka html inaa qornaa rabnaa. waxaa ka bilaabaynaa tagaas calaamad not equal shift number 1 kadibna waxaa dhahaynaa doc type oo document type loo soo gaabiyo kadibna html ayaan dhihi doonaa. Line-kan waxaa lagu soo kordhiyey html version 5 ayuu ka bilowday. waxaan lagu qeexaa inuu yahay document type. wuxuu caddaynaa browserka fahansii doonaa html-ka la rangareynaya inuu yahay html5. kuma qasbanid, waa ignore garay kartaa oo waa iska dhaafi kartaa, laakiin macno ahaan inaa fahanto ayaa wanaagsan. Okay, waxaa ku xijinaynaa html kadibna html ayaan soo xiri doonaa. Sorry. Okay, html tagan waxaa lagu qeexaa inuu yahay the root of elements. elementiyada dhammaan wadadii ay mari lahaayeen inuu yahay ayaa lagu qeexaa. wax walbo html ay leedahay waxaan dhex dhigi doonaa inside elementigan html-ka ayaan dhex dhigi doonaa. Okay, meeshan waxaa kaloo ku kala baranaynaa tagga markuu sidaan yahay waxaa loo yaqaanaa start tag. marka aa aragto calaamadan slashkana waxaa loo yaqaanaa end tag ayaa loo yaqaanaa. elementiga kale aa ku xijinayna waxaa loo yaqaanaa head. asigana headka halkan ayaan kasoo xiri doonaa. Okay, headka waxaa lagu qeexaa inuu yahay meta information. laba shay ayaa headka gudihiisa gasho. midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa waa title. titleka aa soo xirno. titlekan waxaa lagu qeexi doonaa document title ama filekan ee hadda aad joogto ayaa ciwaan loo samayn doonaa. ciwaanka waxaa u bixinaynaa tusaale welcome html oo kale. waa arki doonaa ciwaanka meesha uu kasoo muuqanayo. sidoo kale halkan waxaa galo aad dib ka baran doonaa urlska ama resourciga nooga imaanayo another page kale. tusaale haddii aa u baahannahay external css inaan kusoo xirna pagekan, halkaas ayaan dhigi doonaa linkigiisa. haddii aa u baahannahay bootstrap linki, halkaas ayaan dhigi doonaa iyo waxyaaba google fonts iyo la xiriiro. Okay, headka banaankiisa ayaan imaanayaa. waxaan furaa tag loo yaqaano asigana body ayaan furaynaa. badiga halkan ayaan kasoo xiraynaa. badigan asigana waxaa lagu qeexaa waa elementiska badigooda meeshii ama document badiga waa meesha lagu soo bandhigi lahaa qoraalada iyo sawirada iyo wax walba annaga aa soo bandhigayno. marka aad dhamayso waxaad dhihi doontaa control s ama file save ayaad dhihi doontaa. marka haddii aan rabno anaga waxaan aa qornay in aan browser kusoo rangarayno, laba mid ayaan samayn karnaa. marka aa isticmaalayna sublime inaan right click dhahno meel bannaan aan dhahno open in browser, iyo in aan tagno folderkeeni aad tagno desktop html kadibna fileka waa kaa. aniga hadda browser kan ma rabo default inaan kusoo rangareeyo. waxaa rabaa google chrome inuu igu soo kaco. waxaa ka bedelaa marka browserkan waxaan leeyahay right click kadibna waxaan dhihi doonaa properties kadibna waxaan dhihi doonaa change. waxaa bedelaynaa browserka chrome
apply okay laba mid waa samayn karaa inaan dhaho double click automatic oo iisoo kiciyo notice-kaas waa iska xiraa okay document title-ka waxaa ka arki doontaa halkaas kore ayaa loo yaqaanaa document title tusaale hadda haddii aa furto in google.com documentiga waxaa ku qormaayo google anagana waxaa noogu qoran qoraalka aan kusoo qoranay halkan ayaa loo yaqaanaa body annaga wax information ah kuma aanan soo qoranin marka haddii aan rabno inaan kusoo qorano waxaan imaanaynaa text editor-keena halkan baadiga imaanaynaa hataa haddii aan iska qorno qoraal iska caadi ah ee aan dhahno welcome ee aan tagno browserkeena refresh aan dhahno qoraalkeeni halkaas ayuu kasoo muuqan doonaa okay waxaan rajeynayaa inaan aad iyo aad u fahnay structure-ka sida loo qoro kuma qasbanid kuwaan inaad wada qorto waa ka maarmi kartaa iyo qoraalkeena asalaamu calaykum waraxmatullah